su-aasha ugu dambaysan rabaa hal daqiiqo gudahood inaad kusoo koobto waxaa weeye saxwadii insha allahu sheekh ayaa noo sii faahfaahin doona marka bal ilaa hadda ilaa saxwadii goortay soo bilaabatay isbedelka ku dhacay bulshaweynta Soomaaliyeed iyo muktasabaadka ay saxwadu ay soo dhistay bal kelimo yar oo ku saabsan inaad naga tirahan rabo xiro kooban. Bismillahir Rahmanir Rahiim. saxwada ma baraarugan bulshada muslimka ah hadda taqriiban laga yaabo inuu cimrigiisu 100 sano ka yar yahay ku ka badanna waa jira laakiin kan Soomaalida marka laga hadlo طبعا waa la iga xoogaalsan yahay anigu ama jiilkii labaad ama saddexaad baan laga yaabaa inaan soo galo intaan kulay ka xasuusto Soomaalidu intaynan dacwadan imaanin runtii dad muslima way ahaayeen laakiin xagga fahamka diinta iyo dhaqankeedaba wax aad iyo aad baa ka maqnaa aniga intaan xasuusto waxaan garanayaa masaajidan hadda camiran oo buuxdo meel lagu kala tukada lala yahay oo dhowr oday kaliya ay yimaadaan oo ku tukadaan waxaan xusuustaa iyadoo oo magaalooyinka inta aan kulay garanayo gabadh xijaaban aan lagu arkin bal inuu xijaabku cayib inuu ceeb iyo cay ahaan jiray inuu dambi ahaa dawladda iyo mujtamaca agtiisaba oo dacaayad ka cambaar leh dad xun dad muxuu ahaay habeenkii muxuu ahaay xumaan sameeya muxuu ahaa magacyo leh waxaasaa loo yaqaanay salaaduhuna sidaasay ahaayeen ummadan hadda tafsiirkii iyo xadiidkii iyo fiqhigii iyo wada faafay diinta barashadeedu waxay ku ekaan jirtay dad yaro xer ah oo iyaga laftooda yani aan la tirsanin wadaadada ka wadaada ahaan mujtamaca marka la fiiriyo dhanka ixtiraamka raashinka iyo in xoolo loo qalay iyo in gabdhaha la siiyo iyo dhanka waa loogu roonaan jiray mahmaaha iyo gabayo fara badan wayba ka sameeyeen Soomaalidu oo wixii raashin iyo cunto iyo mahmaahda ku baxday wadaad bay ku bixiyeen wayna u roonaayeen hadana bacdalik way mahmaahi jiray laakiin markii dhanka laga yimaado dhanka kale waxa la yiraahdo raganimadii iyo mujtamaca taladiisa iyo hogaankiisa inuu wadaadku qayb ka noqdo bulshadu yani waxa way masaladaasi war wadaad baa tahay bay dhigi jireen wadaad baa tahay bal waa kuwa bixiyay wadaadku markay yiraahdeen mar ragga badan mise dumarka badan waxay yiraahdeen hadii wadaadada dumarka lagu daro dumarka badanaya ilaa heerkaas ay gaadheen yani waxa way mujtamac halka gaadhay ayuu ahaa wadaadka waxa loo yaqaanay nin dawarsada oo intuu jidadka istaago muxuu ahaayay magaalooyinka qisooyin intuu wax akhriyo dadka wax weydiistaan loo yaqaanay wadaadka waxa loo yaqaanay nin fulay ah oo aan dagaalka lagu tashanin wadaadka waxa loo yaqaanay nin aan waxba qabsanin oo muxuu ahaayay marjay ah oo aan shaqaysanin oo dadka ku duldhool baa loo yaqaanay intaaba waan soo gaaray Sheekh Xasan baa kulay aad iga sii xogaalsan inta iyo in ka badan ba soo gaaray dawladdii Soomaaliya markii dambe ee shuuciyada ahaydna deewaatii dharka u dhigatay inay dacwadan la dagaalanto oo culimada xabsiyada galiso warbaahinteedii oo dhan ay u isticmaasho sidii loo suura xumayn lahaa dacwadan iyo muxuu ahaayay dadkeeda halkaasi dhibkaasa mujtamaca marka jiray mujtamacuna yani wax way wixii uu ku soo barbaaray iyo caadaadkii uu ku soo barbaaray in laga gooyahay ma fududa xataa haday khaldan tahay yani wax way wuxuu ab iyo awow ka soo gaaray mujtamacu isaga dhagaya waana shay caadi ah halkaas ay marka ducaad wax ka bilaabeen ilaahay khayr ha siiyo way kala horeeyeen
muxuu ahaayey inta badan saamaynta ugu badan waxaa lahaa culimadii wax ku soo baratay xarameynka iyo wadankaas sacuudiga wax ku soo bartay ayaa saamaynta ugu badan lahaa saxwada way jireen rag kaloo iyaguna saamayn ballaaran lahaa oo intooda badanba ka horeeyey sida maalan sheekh maxamed macalin xasan oo kale ilaahay u naxariisto ashari buu ahaa laakiin muxuu ahay jaanibka baraaruga guud marka masaa'ishan hoose ee laga tago masaa'ishan muxuu ahay ku saabsan caqiidada iyo bidcada iyo sunnada iyo yani marka kuwa laga tago baraarujin islaamkii baa maqan iyo ummadda diinteedii u soo noqoto iyo fasaadkan iyo ummaddu meeshay gaadhay dib ha looga soo celiyo ilaahay khayr ha siiyo hana u naxariiste runtii dowr aad u ballaaran ayuu ku lahaa rag dhanka caqiidada iyo khuraafaadka iyo qubuurtan iyo waxaan ummadda lagu mashquuliyey wadaad dhintay baa waxtari iyo kaalaya qubuurta caradeeda urursada iyo muxuu ahaayey sanadkiiba dhowr goor in siyaaraad iyo baabuur loo qaato oo muxuu ahaayey oo hanti iyo waqti iyo meesha lagu bixiyo iyadana waxa weeye rag baa runtii dowr iyo kaalin weyn ku lahaa muxuu ahaayey sheekh nuur cali colow iyo rag uu u horeeyey saar isleeyahay taqriiban ayaa iyadana gadaal dambe marka raggii jaamacadaha aaday ee soo baxay ayaa soo noqday waa ragga annaga markay noo imaanayeen annaga laftanood xilligaasi waxaan iska ahayn dariiqooyin baan ahaynoo dariiqada qaadiriyada oo wali qaybta sayliciyada ah ayaana lagu dariiqa siiyey oo halkaasaanu ka biyo cabnay annagoo waliba kutubta akhrisanay oo tafsiirka akhrisanay oo naxwada ilaa alifyaha akhrisanay oo culimo ahoo wax akhrinayna ayaa haddana waxaani uusan noo kala baxsanayn sida hadda wadaadada qaarkood haysta culimadaasi markay yimaadeen oo runtii dadaal badan bixiyeen oo adkaysteen oo la xidhxidhay oo la rafaadiyey oo mujtamacii oo dhib badan ay la kulmeen ilaahay fadligii tabaaraka watacaala midhuhu waa isa soo tareen mujtamacii waxbay maqleen kacdoon wadanka ka jirayna waa kaalmeeyey runtii iyo wadciga nolosha oo runtii aad dadku ay wax badan u tabanayeen isbedelku marka sidaas ayuu ku yimid waa isbedel isa soo taray taraakum sameeyey meel ka soo bilowday ninba qayb ku lahaa culimadu uu midba qayb ku biiriyey ilaa maanta uu soo gaadhay inay runtii ummadda Soomaaliyeed 80% ka badan la dhihi karayo waa dad wax fahansan oo muxuu ahaayey camalka iyo ku dhaqanka qaybo badan waalidiintii wali maqan oo qaybtii dawladnimadu waa maqan tahay oo andimo kale iyo dasaatiir kale iyo waxyaalo kale ummadii haysta laakiin in badan oo kamid waa soo noqday dhaqankii noloshii suuradii wadaadka laga haystay waa isbedeshay wadaadkii wuxuu noqday nin muxuu ahaayey wadankii iyo ummadii hoggaankeedii qayb ka noqon kara wuxuu noqday nin mujtamacii agtooda sharaf ku leh wuxuu noqday nin taajir oo hanti yeelan karaya wuxuu noqday ninkii xabaali qorisaan may qori ka qaad ma leh ahaan jiray maanta wuxuu noqday inuu isagu hantidiisa iyo xoolihiisa uu ummadii ugu deeqo wuxuu noqday masaalixda guud ee ummadda inuu kana taliyo qaybna ka noqdo bal inuu qayb libax ka noqdo burburkii wadanku markuu dhacay wadanka runtii qayb muhiim ay ka noqdeen tacliintiisa jaamacadaha ugu muhiimsan ee wadanka ilaa hadda ka jira taqriiban saxwadaas oo yaa bilowday iyada ilaa hadda gacanta ku haysa yani baynama dadkii kale mutacalimiinta badankood ay dibadaha iska aadeen ayagu wax weeyaan inay dalkii wax ka asaasaan hay-adihii carabta iyo meelo badan wax ka soo gurahay ummadda caawinaysay tacliintii hadday tahay islaaxi heshiisiintii qabaa'ishii iyo dagaaladii iyo wixii runtii dowr iyo aad u weyn bay ku yeesheen ama tacliinta iyo waxbarashada ummadda oo diinta la bara ha noqoto iyo baraarujinta guud ama ha noqoto ummadda masaalixdeedii kaloo qayb laga noqdo meel hadda waxay soo gaadhay baan isleeyahay taqriiban walow wax badani dhiman yahay aad iyo aad uga fiican marxaladii hore lagu jiray waa si guud uun inaan u tacliiqiyo laakiin tafaasiisheeda hoose waqti dheer waa u baahan tahay ragiga xogagaalsanna kolley way jiraan muxuu ahay intaas ayaanse kaga qayb qaadan hadaa billahi tawfiiq wasali allahuma wasallam wabaarak cala nabiyina